وزيرka wasaaradda duulista hawada Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe dhawaan waxaad safar shaqo ku tagtay dalka Djibouti halka waxaad kulan kula qaadatay dhigaaga dalkaasi walaga wuxuu la xirkaa kulankaasi iyo kulanka la qaatay wasiirka dhigaaga bismillah alxamdulillah ilaahay baa mahadleh waxaynu galashanay 10kii dambe Ramadaan baan mukaafka la galay ilaahay haynaga aqbalo kuwa loo dambi dhaafo haynaga yeelo ilaahay damkii runta horena waan uga warramaan filayaa maanta waa ku mahadsantahay hadda xafiiska ugu soo booqateen safarkaygaasi wuxuu daaranaa waxaanu ka helay martiqaad san hore u sheegay rasmi ah wasiirka gaadiidka iyo hawlaha guud ee dalka jamhuuriyadda Djibouti mudane maxamed cabdulqaadir xilim muuse xilim oo runtii wasiir qiimo laha si karaamo leh oo milgale noo soo dhaweeyay madaarka nooga hor yimi wasaaraddiisa aanu shir ku qaadanay markii dambena waxaanu tagnay xarunta meteorology-ga ujeedada waxay ahayd martiqaadkuna waa ogtihiin oo duruufaha isbeddelka cimiladu uu ku keenay geeska Afrika iyo geyigeennaba abaaraha iyo haddii roob badan imika oo duufaanada iyo fatahaada dhici kara waxay u baahan tahay gacanta laga geysanayay ama waxtarka dadka la siinayo qura maahe in si scientific oo cilmiyana dadka xog looga siin karayo sababtaas awgeed ayaa maadaama wasaaraddeedu ay hawada iyo waxyaalaha ku taxalluqdo iyadoo ay u xil saaran tahay waxa jira qorshe soo jiitamayay oo nu doonayna inaan ku kicino oo ku sameeyno qaybta waaxda meteorology-ga saadaasha hawada dad baa isku qalda waxay dhahaan waa maamulka hawada waa aviation oo wax kale sector-ka weeye laakiin waa tani waa meteorology waxa weeye in la socdo halkeen berito roob ka da'aya ilaahay baa og oo u cilmi leh laakiin inta bini aadamku deemanka uu istaawiyayo weeye in la ogaado oo aqoonteedii iyo qalabkeedii keeno marka runtii dalka Djibouti waa horumar wanaagsan buu ka sameeyay xagga marka qalabka waxa noo ballan qaaday inay keenaan urur goboleedka IGAD xarunta Djibouti tayagana shir baan la yeelanay madaxda ugu sarreysa wasiirkuna in wasaaraddiisa oo qaybta meteorology hoos tagtaa inay xagga tababarada iyo aqoon isweydaarsiga aanu iska kaashano qaybtaana degdeg baan u kicinaynaa insha Allah si xog dadku ay u helaan oo xitaa TV-yadana telefishinadu ama fogaal-aragyada ama meelaha maartay shirkadaha xogtu ay helaan in weather forecast-ki saadaashii hawada xogteedii la heli karo berita halkaas ka daaya berita halkaas duruuf dabayl xoog lan baa jirta xitaa roob hadduu da'ayo in la yiraahdo berita halka waxa laga yaabaa in roob ku badan yahay dadku inay duufaano soo socdeen inay ka taxadiraan oo xogtii dadkaan siino sidoo kalena meelaha dhismayaasha oo kale shirkadaha dhismaha ka caawin karayno oo laga caawin karayo xogta dabayshu soo dhacayso si ay qaab dhismeedka sare roofka guryaha oo kale ama meelaha sariibadaha oo kale lagu saleyn karayo habka hawada u dhacayso saan roofka aan jinka uga qaadin waana adduunku sidoo u shaqeeyay marka oo waxa la xamaanta adduun horbar la sameeyay waxa lagu saleeyay saadaasha hawada meteorology-ga sidoo kale diyaaraduhu halkay u soo fadhiisanayaan inay madaarkii ka caawiso iyadana xogtiisii adigu marka ay kaawo iyo IGAD iyo wasaaradda duulista waxaan leeyahay gaadiidka Djibouti oo isla kaashanaynaa sababtaasana ka dambeysay inaan ku tagno meesha martiqaadka labada cisho oo ku joognay runtii wax weyn baana nooga soo qabsoomay Djibouti waa dal aynu walaalanahay la xajxelo badan kale nabadda iyo deganaanshiyaha mandaqada geeska siyaasi odaya oo rugcadaayaba hogaaminaya oo runtii ragga imaka siyaasadda horumarka geeska Afrika in badan uu soo joogay wax badan isaga madaxweynaheenuba marka runtii waa muhiim inaan wax badan iska kaashano inuu maartay xiriir wanaagsan sameeyno taas qayb un bay ka ahayd xiriiradaas socda oo ku soo kordhinayna saadaasha hawadana ay iska kaashan kareen insha Allah muddo waxa jiray in wadamada khaliij ay xiriirka diblomaasiyadda u jireen dowladda Qatar taasina ay kaliftay diyaaradda Qatar Airways ay isticmaashay duulimaadka dowladda Soomaaliland Soomaaliya ay isticmaashay xagga Soomaaliland marka laga hadlo idinku wax inaad ku siisaan amara inay hawadiina isticmaasho diyaaraddaas horta hawada Soomaaliya san hore u sheegay waxa xukunta inta lagu heshinay ay kaawo muqdishana lagama xukumo hargeysana lagama xukumo Nairobi baa laga xukumaa hay'adda ay kaawo qaramada midoobay ama busha system bay leedahay wasaaradda duulista ee Soomaaliland aan ku monitor gareyno kula socono diyaaradaha hawadana soo gala diyaarad walba waxaanu haynaa registration number-keeda
waxaanu haynaa maalin walba iyo saacad walba diyaaradaha soo mara registration numberkeeda nooc ay tahay ma Airbus ba ma Boeing ba halkay ka timi iyo halkay ku socoto iyo flight numberka intaba waa haynaa iyo nooc ay tahay oo calankay sidato marka Qatar Airways diyaaradaheeda waa la soconaa route-kay maraana waa la soconaa waana isticmaalayaan hawadeena imika way isticmaalayaan inta la socono kuwii dambeeyay saaka markay waxay soo marayaan Iran Oman bay ka soo wareegayaan halkaas ay ka soo galayaan marka Yemen dhinacay ka soo marayaan halkaas ay ka soo galayaan maxaan ku dhahdaa laas qoray bay ka soo dhacaan hawadeena laas qoray route-ka Hargeysa dusheeda maraan halkaas ay dabada waana inta badan diyaaradaha tagaya Entebbe oo Uganda maxaan ku dhahdaa Ethiopia maxaan ku dhahdaa wadamada South Africa kuwa tagayo dhamayna soo maraa marka waanu la soconaa maalin walba inta ay flyada isticmaalaan ama diyaaradaha kale Ethiopian Airlines baa u badan Emirates baa ku xigta diyaaradaha hawadeena isticmaalo dhan waanu la soconaa waana monitor gareynaa marka si fiican la soconaa arintaas وشي والبشرية إيه اللي تيجي ملاك في الملاك الديسة قلنا أريدها سي كورنيا ديورته وحنا كواركي بيج كيجا فيسبوك أما صور دقوا وحنا له ورشيدان كنا والله حلا dadkuna markuu Soomaaliya beentu inuu saqaaminaysa soonkiisa waxa ku kalifaya haduu 12 kale been soo sheegay inuu Ilaahay isu dhiibo bishaas muhiima dawriyaashuna qayb ka Ilaahay way hortagaya marka sababta ku kalifeen beenta la sheegan waa fahmi waay waxa lagu wareejinaa Turkish Airlines adduunka shirkad diyaaradeed madaar la wareegtay ma jirto xataa hadii si cilmiyan xataa qofka uu soo baari lahaa waxba la baaraa Turkish Airlines dalkeena ma timaaday marka wada hadal baa noo socday inay timaado waa suurtagal marka diyaaradahan dalkeena bay madaar la wareegtaa sabab keenaysa ma jirto taasi waa been cad oo saliya raatoon lahayn ilaahayna uga dambe dhaafaan leeyay cidii ay ka soo baxday oo ajri maartay ha ugu bedelo inuu soonkiisa anaga ka naaqusmin insha Allah taala oo ayuu waa dalkana waa wada leen la xajana ka wada leen dad ahaan dad la xajana iska leeyahay marka waxaan oolaa taas waxba kama jiraan waxa jira fulu company aan timiyo Turkiyo imaka tiraba 4 jeer timi halkan company waxaan ka wada hadlaynaa ka wada soconaa waxa sidii terminal cusub looga sameeyay lahaa madarka Hargeysa casri ah terminalkaasana hawshiisa ku jira waliina wada hadalkii waa noo socdaa asbaab iyo meel lagu wareejinayaana ma jirto taasi ma jirto imika qorshaha kuma jirto dabadeedna qorshaha xukuumadda ugu ma jirto waxa weeye madaarkan waa madaarka qurahe imika noo shaqeeya waa caasimadii sabab iyo qaab loo wareejin karo madaarkii caasimadda oo lagu wareejin karo company ama shirkad mandaq ma aqliga caadiga ku siimayso marka waxa weeye taasi waxaan oran lahaa waa iska hadal mala maalinta warka lagu buuxinayaan filaya waxa kale oo Djibouti kula kulanay oo sidaan idin sheegay wasiirka iyo IGAD iyo wasiirka maaliyadana wax xafiiskiisana kula kulanay runtii si qiimo leh arrimo badan oo sheekaysanay oo dana ka dhaxeeya labada dalba waxa kale oo fursad aan u helay inaan habeenkii kala qayb galo xuska ciidanka jamhuuriyadda Djibouti oo madaxweynaha aanu halkaana runtii aan kula kulmo oo aan salaan madaxweynaheena uga sidana gaarsiiyo una hambaliyay insha Allah xuska iyo guulaha Djibouti ay ka gaadhay xagga ciidamada iyo dhinacyada kaleba iyadoo waxyaalahaas aan ku daray lahaa